kow, laba, saddex, afar. Ma neefsan karo. Saara qaado daawadaada neefta. Asmada ama neefta waa cudur ku dhaca sanbabaha, taasoo keenta dhibaatooyin la xiriira neefsashada, waayo mariinada hawada ayaa aad u yaraado. Taana waxaa keenaya caabuq ku yimaada tumbooyinka xididada. Mariinada hawada oo ugu ballaaran. Cudurka neefta ee aadka u daran waxay halis gelin kartaa nolosha. 3 isbedel ayaa ku dhaca neef mareenka markuu qofka haysto asmada. Isbedelka ugu horeeya waa bararka xuubka iyo xab badan. Isbedelka labaad waa markuu bararka keeno in murqaha ku wareegsan mariinada hawada ciriiri noqdaan. Isbedelka saddexaad waa markii nidaamka neefsashada sensitive noqoto. Dadka asmada haysta waxaa dhibta maanka, timaha xawayaanka, hawada qabow, dhaqdhaqaaqa badan, qiica zaa'idka ka imaada ama shirkadaha ama sigaarka. Bukaanka neefta qaba waa in si dhow ula shaqeeya dhakhtarkiisa si loo helo habka daaweynta ee ugu fiican, oona loo bixiyo xanuunada iyo wareerada neefta la xiriira. Ujeedada daaweynta waa in laga hortagaa neefsashada culus iyo qufaca. Waxaa la rabaa in la kordhiyo shaqada caadiga ah ee sanbabaha qabta. Daawooyin kala duwan ayaa loo isticmaalaa neefta. Mid waxay tartaa wax markay qofka neefta ku dhagto sida saharo kale. Midna waxay ka hortagtaa caabuqa. Midna waxay ka hortagtaa inay hawo mareenka yaraado.